aniga xataa wala yiri jawhar laga soo saaray moogta ninka saldhiga jawhar iska haysto aan xilka laga qaadin maalinka jawhar la asaas ilaa maalinka cali guud laaba tagay ilaa hadda iska haysta aniga saldhiga jawhar dagaan adagana dhaxmar uu yaqaan aniga magaalada iga bixi jawhar laga soo bixi sabab de waa ku farxsanay ilaa musaafiriyo soo nin oday mihi diinta wada ma sha Allah waxa wada moogta intii iiro wuxuu ugu yiri arbaca imaaday qamiis jimc arbaco talaada imiday talaado arbaco qamiis jimc talaada antagi laba iyo 12 masjid baa maray uur saana waa runta laakiin laba iyo 12 ka masjid saldhiga hala weeraro dadka hala dilo isdila maan dadka kala hadlay masa inay umada kitaabka Ilaahay barato diinta Ilaahayna u xirowdo qabaa'ilkuna ay bilaabaan in kitaabka Ilaahay sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu dhaqmo xalkuna inuu inta yahan cadeeyaan wuxuu fikirkan yaa ku soo dhiib waxa sidii darwa moogta sheekh ya fikirkan waxa ay soo dhiibay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisi iyo taabiciintii culimadayni waana fikir ila qiyaam saaca jiray mar walbana cid wada wala heli marka lagu xiray meesha wuu xiray ani waa la yaqiinaan iriniyo hir shabeelo waxaan u wanqashay dawladda federaalka waxa la waayay qoladii nabad sugida ninka ka warmaalay shantaay waxay dheen waa naqaanaa laakiin waa nin hadaad adag iska daayeen qolada xaq ma aanay dheen adiga markaa diin sheegto xaga lagu tirinaa mugta ma qaranayna xaga lagu tirinaa waa waxaan la yabaniyo xijaabki quruxdii diintii umada hal nabad geliyo xaga lagu siinay markaad umada dhibto umada dhacdo waxa lagu leeyahay waa hebel adeer isma qabato wanaagiyo dhan hadana hal qolo siina xaano haranag marka xaq waa laga soo musaafiri marka waa laga soo musaafiri ninka wuxuu ninka waa deeyha laakiin bishardi waa inuu magaalada kaga baxa jawhar ka baxa warkii aan ku soo gabagabay cali guud laa madaxweyne ku xogeynahay warku gaaray cali ay soo wacay habaalan kaga haya oo ku mahadsan yahay aniga mogta qofkii yiraahday qofkii dacwadayda ii madax baneeyo waa inuu mahad celinay wuxuu yiri hooshaada wado ninkaas jooqo ma dhikir marka jawhar markii dambana waa saga soo tagtay dantaydan ka gaaray anigu taqriiban waxaan rabay masaajida jawhar intii suuq leh oo hal waqti buuxsami karto inaan tago waana tagay ugu yaraan 27 masjidaan tagay kabacdi markay culimadii khayr Allah si ducaadii reer jawhar ay dhaheen xaafad mooye hadda uun 5 qof iyo 2 qofood ku dukayso masjid hadda aan ku tilmaami karno ma garanayno iska soo lugay iska soo tagay gaarigayga ka soo qaatay marka waxa weeyaan adigu marka tiraada xaqa wada ma jaha lagu qabsanaya marka sheekh Shantaay midii kugu darneed qisadii kugu cajiibsaneed oo la kulantay hadii aad noo sheegto wallahi qisadii ugu cajiibsaneed oo mar walba xasuusto waxa weeyaan qisaan balowdeen kala kulmay masjid weyn oo liiraado carabta ama mataanaha ayaan kalimaad ka jeediyay reer balowdeen halkaan ka salaama reer balowdeen aad bay soo dhaweeyeen maalinkii koowaad masjidka ka hadlay kadib dhulkan dhixay wax ii sheekeeyo masjidkii markaan ka baxay 5 qof 10 qof 20 qof inay u heliso in la sheekeeyo in la yiraahdo maqaayadihii ugu fiicnaa la tilmaamo oo markaan cuntayo aan tago qaybta maqalka oo lacagta bixi maaga la yiraahdo lacagtaada waa la bixiyay yaa bixiyay war sheekh ma garanayno 100 qof wada lacagtaada ugu qabsatay inaan bixino war yaa bixiyay ma naqaan waa la bixiyay waxay soo wacay nin dhahayno sugida haysta oo dhalinyaro ah waa tagay oo u tagay wuxuu meel yiraahdo laba galaanka ima u biirso wixii waa yahay adigu waa lagu yaqaan waqti inaan urdaynin nin odaya taa lagu fahamsan yahay habeenkii waa iska jiiftay salaadii subax baa adkaarteeda iska akhristay juuskii quraan qac ka siiyay waa waxaan riniyo xoogaa hurdaan ku laabana wadaadku ugu dhuntay isdheynaa 4 saacan ku imaana waa yuur tobankii barkiyaan ka kacay fariinaan u diray waxaan arintaani mahda meeshaas meeshii aan tagay silig meeshii ilaa laga qaaday waa galay marka shakhsiyad aniga qadiyad aniga toos ugu dhacday taas ay ugu darneed su'aalaha dadweynaha iga yimaadana kuwa aan ka jawaabi waayo anigu xataa qiilay igeliyo aan ka xanaaqan way jiraan marka waxa weeyaan adeer majaalaysta kadib wuxuu baarid buu sameeyay jawhar iyo wacay waxa la yiri marka qolada nabad sugida way xiriiraan waqta sameecadu furay wuxuu yiri Sheekh Salaad Maxamuud Sheekh Shantaay ma taqaanin wadaadka oo gaaban oo madaxweyne mi aha warinkaas al-shabaab ma ahanay diina waa shay dheen
arka saacadu furay marka dheen waa nin waalanay dheen kaad anigu ma waalni xaaskiga xaaska waa ka qana marka laakiin qofkii xaq hadla waxa la yiraahdo waalan yahay marka waxna weynu dhimayeen dunyada inta joogto adiga majaal lagu qabsanay